igu salaam xaaska labaad insha Allah. gabadhan ninkeeda oo safara ayaa airportka macasalaameysay weliba asigoo u socdo xaaskiisa labaad cajiib afar xaaji xaaska saddexaad xaaska labaad iyo xaaska afraad u socdaya haddaba gabadhan waxay kaloo sii sheegtay inuusan u socon keliya xaaskiisa labaad uu u socdo xaaskiisa saddexaad iyo mid afraad runtii waa cajiib ugu horan muuqaalkan laag inoo saara inoona sheergaaris dad badan u gaaro laagta muuqaalka dad badan ay gaarsiisa aad iyo aad u mahadsan tahay hadda dadaan laag saarin muuqaalka laag inoo saar assalaamu calaykum maalin wanaagsan soo dhawaada asxaabta ciid wanaagsan intaba soomaali maxamed meel walba joojin waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan waxaan idin soo wadaa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore gabar ninkeeda oo safara airportka macasalaameynayso weliba asigoo afartii boorso oo afartii xaas loogu talagalay asagoo wado waa cajiib runtii gabadhaani maraalli ayaan ku tilmaanaa maxaan ku tilmaamaynaa keliya waxaad ogaanaysaa markaa muuqaalka aad daawato bal klibkan iyo macasalaameynta ninkeeda gabadhaani aan wada daawano balse intaadan daawan waxaan idinka codsanaynaa muuqaalkan laag inoo saartaan gabar ka duwan gabdhihii hore gabar ka duwan gabdhaha hadda maanta joogo gabar raaliye ah in badan raaliye dhaaftay weliba cajiib ilaah idin barakay familka ma dhexgeli karno bal adigii commentiga waxaa ka leedahay muuqaalka gabadhan aan wada daawano kadib commentigaaga nala wadaag gabadhaani maxaa ku tilmaami leedeen ma raaliyiba mise wax kale aad iyo aad umahadsantihiin laagtana ka ilmaamina hadduusan beedkeena follow ku weynana soo follow guray oo nagu soo bir aad iyo aad umahadsan tahay igu salaam xaaska labaad insha Allah iyo xaaska saddexaad intii afraadba xaaji intee u socotaa Nairobi yaa u socotaa noo sheegno xaaska labaad maya ma soo noqon karti oo arka daan ku xirin I'm joking guys remember ana afar xaaji xaaska saddexaad xaaska labaad iyo xaaska afraad u socdaya hay saaxiib ilaahay ku nabadgeeyo ha tiktok waxay leeyihiin baantaa waaye xaaji ma ku dhacay naag labaaday airportka Nairobi lagugu subaa igu soo dhaweeyay Nairobi airportka igu soo dhaweeyay gabadhiina ilaalsada airportka igu imaada gabadhiina ilaalsada wallahi saaxiibay hilfay ku qaadaya ninkaan hada ku artiin isagoo naag la hadlayo Nairobi isoo sheegay runta marka laga hadlo gabadha iyo ninkeeda hadalada ay ku hadlayaan sida isku faraxsan yihiin waxaad ka dareemaysaa kalsooni xad dhaaf ah inay jirto وهذا ندد إسلا صوجة بس عند دريم كرنو كالسوريين اللي لو ما كسدو ما جرتو مرة لقى هلو قبلين سوماليين واسنا والي قانا لقى ما هلو قبل هذا ما إن كسر دعوة ننكر ناكر لقب وننكر هذا أنت أربور كسر دويسو يدو ده يسوي يشك مع السلام يوصلان حاسك لبعض حاسد هذا يوصلان إن كسر دجر تحتها ما كسر دويسو وايو الرئيس يقول هذا صادق قبل داني ورد قلبي مجران afka ay ka dhaysaa waa kaliya kaftan ninkeedii kalsooni ku qabtaa kalsooni intaas leegna qof in laga keensado way adag tahay runtii waa cajiib waxaan idin leeyahay ilaahay isku kiin barakeeyo ilaahay isku kiin daayo famil qurux badan oo aad isku faraxsan baa tihiin noolaada wax kaloo idin dhehayna ma lahan Soomaaliya isha laga daayo famil walba isku qurux badanna maasha Allah soo qora gabadhaani hadda maxaad ku tilmaamaysan idinka maraaliyo mise inta aad iyo aad umahadsantihiin muuqaalkan like noo saara inoona share gareeya hadduusan beedkeena follow ku weynana soo follow gareeya oo nagu soo bir aad iyo aad umahadsantahay